السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaashin aamina like official waxaan idiin sii wadayaa sheekadii qisadii ku dhacday ruwayda hooyo ruwayda waxaan leeyahay umu yacquub waa hooyo ruwayda umu yacquub hooyadii yacquub gabadhan soomaaliyeed ee la yiraahdo ruwayda waa gabadhii Sweden saddexda ciyaal lagaga qaatay hooyadii soomaaliyeed ee saddexda ciyaal Sweden looga qaatay part 2 baan idinku sheekeeyay tan waa part 3 hooyadan waa tii guriga loogu yimid markii guriga loogu yimid waxaa lagu yiri guriga caruurta waxaana looga soo sheegay iskuulka inayna cunto helin inay khatar ku jiraan sida la aldigeed ayaan kuugu nimi qisadii markaa waxay noogu dambeysay iyadoo ay leeyihiin waxaan ku geynaynaa meesha dadka xanuunsan ama dadka nolosha ka dhacay la geeyo oo ay u dhasheen kuwa Sweden-ka xitaa ay ku nool yihiin gabadhani markii ay yiraahdeen waan ku kaxaynaynaa waxa ay dhihi doontaa aniga caruurtaydii aniga halkan joogaynaa haddii aan idin raacin ka warrama waxay leeyihiin haddii aadan na raacin macnaha caruurtaadan fasaxin markaa khasab macnaha waa inaad raacdaa ilaa ay meeshii geeyaan ee nolosha looga dhacay ee dadka daroogada qaata ay joogeen waatan iyadoo qisadii ka sheekeynaysaa hooyo ruwayda سوسيال دخل بحياتي وهن يسمعوا كل يوم على هاي المرأة قالوا لي راح ناخذك للكولو مع عائلات سويدية كتار وراح تبغين هناك وراح تتفسحين انت والاولاد وقلت لهم اذا انا ما بدي قالوا لي ايه هذا معناته انت ما بدك تفسحي الاولاد يعني ما عندي غيار وانا من داخلي يعني كتير خايف waxay tiri aniga aad baan u baqayay gudaha macnaha aad baan uga baqayay baqdan xoogay haysay mana aan lahayn choice ma lahayno inaan macnaha wax kala doorto ma lahayn waxay igu khasbeen inay kaxeeyaan wayna iga diideen inaan ka joogo aniga caruurtayda aan ka harno waxay yiraahdeen waadna raacaysaa wayna kaxayn doonaan أخذوني للكولو وشو يحصل فيه نحن عائلة الوحيدة الأسود وكل التانيين سويديين وأمهات يجون عندي ويسألوني أنت ليش هنا أي فكان سبحان الله waxay tiri markii meeshii la geeyay meeshii dadka nolosha ka dhacay la geeyay waxay tiri waxaan noqonay caa'iladii ama familkii kaliya ee madowga ahaa ayaan noqonay waxay tiri naagihii nolosha ka dhacay hooyooyinkii nolosha ka dhacay way ii yimaadaan waxay igu yiraahdeen maxaad halkan ka soo doontay macnaha maxaa noo ka keenay kaligeen baa madow ka noqonay bay tiri عندي أخت عراقية معايا وهي كان عندها ستريس بعدين جابوها هي كمان وبعدين يعني أنا كنت أقول يعني أنتم ليش جبتوني لعند هذول الناس كلهم عندهم مخدرات مشكلة مخدرات أنا ما عندي مخدرات أنا ما أكل دروغس أنا ما عندي دروغ بعدين قالوا لي لا أنت كمان عندك مشاكل تانية علشان هيك أنت واقعة على يد السوسيال waxaa meesha joogtay bay tiri hal gabar oo ciraaqiyad ah ayaa ku noolayd hooyo macnaha xanuunsatay oo maskaxda laga galay oo ay ka waaleen iyo caruurteeda meesha ku noolaa waxay tiri anigu waxaan weydiiyay waxay meeshan igala soo dooneen maadaama meeshan dad muqaadaraad ama darooga qaata ay ku nool yihiin waxaan ku irbay tiri anigu darooga ma qaato maxaad meeshan igala soo doonteen waxay u yiraahdeen haa mushkiladda ma qaadatid darooga ma qaadatid laakiin waxaad haysataa mushkilad kale ayaad haysataa macnaha waxay leeyihiin wad waalan tahay waxay tiri anigu waxaan ahay qof wax baratay gacantaydu waxay baratay qalinka ma ay baran darooga ma ay baranin marka maxaad meeshan igala soo doonteen waxay ku yiraahdeen mushkilad kale ayaa ku haysata guri wanaagsanna kuwa socialka ama caruurta qaata ma soo galaan guri nadiifa sidaasaanu kuugu soo galnay sidaasaanu kuugu nimi waxbaa kaa khaldan subxaan allah ما يخش بيت نظيف قلت لهم في وحدة تشتكي علي أنا ماني وحدة تأخذ مخدرات أنا أدرس أنا إنسانة بإيدها قلم سكتوا مني يا أخي وبالهاي الكولو سبحان waxay tiri naagihii mid ka mid ah mid aad iga dacwootana way ku jirto oo aan ka cabtay waxaanan ku irabay tiri anigu waxaan ahay insaaniyad qof gacanteedu baratay qalinka oo cilmi iyo tacliin baratay ma ihi qof xanuunsanaysa ma ihi qof darooga qaadata marka ما قرنايا بيلا هذا سببت ماشي إيه كنتين الله اللي صار فينا ابني انضرب من أطفال سويديين وأنا ركضت وجبت ابني وجبت بنتي وبعدين إجت معي اللي عندي واحدة سويدية وتقول أنت waxay tiri
maalin maalmaha ka mid a macnaha wiilkayga waxaa dilay bay tiri ciyaalka yararka Sweden-ka ah ayaa dilay kadibna waan orday wiilkii yaraa baan soo kaxaystay waxay leedahay waxaa ii imaan doonto hooyooyinkii meesha Sweden-ka ahaa daroogada qaadanay mid ka mid ah ay imanaysa waxay igu leedahay bay tiri caruurta waad ka cabsiisay macnaha anu ilmahaygu ma soo qabsaday oo la dilayay bay tiri marka ilmahaygu soo qabsaday bay leedahay caruurtii kale ka cabsiisay wada cabsi gelisay macnaha ku qaylisay خوفتي الأطفال قلت لهم كيف أنا خوفتهم هن قاعد يقولون أوبا 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 القرد 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 وين ما مشت بنتي يقولون قرد لو waxay tiri ma sidee baan aniga caruurta uga cabsiiyay bay tiri ciyaalkii laftirkoodii baa waxay tiri caruurtayda waxay ku caynayaan oo ay leeyihiin waxaad tihiin daanyeero baad tihiin ilaa family kaliya mid meesha ka madoobay ku jiray meesha ahayn marka wax ka celinaya ma jirto gabadhana waa adiga arkaya say u qurux badan tahay ruwayda sawirkeeda wata hooyada aad u quruxda badan kalarka quruxda badan maasha Allah da way laakiin iyagu caybe eber uga dhigeen waxay leeyihiin adiga iyo caruurtaadaba daanyeero baad tihiin waxay igu yiri waxay caruurtayda ku yiraahdeen bay tiri daanyeer aniga markaan soo baxana waxay bay igu dhaheen bay tiri gorilla waa ka daanyeerka ka sii weyn anigana gorilla igu yeereen caruurtina daanyeer bay ugu yeereen marka aad bay u qaracmaysaa markii halka marayso ruwayda أنا أطلع يقولوا لي غوريلا تخيل يعني أنت باليد الحكومة اللي تقول كل يوم نحن ضد العنصرية وبنتي عمرها 10 سنين ما في إنسان أحلى منها إذا تشوف عيونها وشعرها بس أطفال السويديين 7 أيام ينادون القرد القرد وأنا اسمي صار من رويدة waxay tiri bal sawira bay tiri marka caruur inta 7 maalmood ay kugu yeeraan daanyeer waxay tiri gabadhayda yartoo quruxda aad yaabto bay tiri sida u egtahay timaheeda iyo arageedaba aad yaabaysa bay tiri oo 10 jira ayaa waxa loogu yeerayaa bay tiri kuwii ciyaalka qaata hortoodii ayaa lagu leeyahay bay tiri daanyeer waxna kama qabanayaan nagamana celinayaan waxay tiri siday noo caayeen waxay nagu nacaynayeen oo daanyeer noogu yeerayeen ana gorille igu yeerayeen muddo 7 bari ah wayna arkayeen bay tiri kulligood way wada fadhiyeen waan u sheegay waxaan ku bay tiri waad fadhidaan waxaad leedihiin cunsurinimo ma naqaano haddana cunsurinimada la igu sameeyay waxba kama qabanaysaan إلى الغوريلا وتخيل إنه سوسيال يسمع كل هذا البهدلة ولا واحد فيهم تحرك كل مرة يجون لي ويقولون أنت خوفتي الأطفال أي أطفال أنت waxay tiri waxba kama qabanayaan way arkaan bay tiri way daawanayaan waxa nagu dhacaya anigii bay daalac ii raacanayaan ileeyihiin adiga caruurta ka cabsiye waxaan ku rabay tiri caruurtee baad ka hadlaysaan ma caruurtan 7 bari hortiina nagu caynaya aydan waxba ka qabanaynin baa leedihiin wada cabsiisay خوفتي أطفال فلانة أنت خوفتي أطفال فلانة يعني ما في شيء هبلايه ilmaheedaad ka cabsiisay يعني أنتم قدام عينكم هاي البنية تقول لي غوريلا وتقول عن عيالي قرد وأنتم تسمعون وتسكتون وبعدين أنا رحت عند هاي hortiinay gabadhan yartaa igu caayaysaa bay tiri wayagu waxay leeyihiin heblaayo gabadheeda wad ka cabsiisay heblaayo gabadheeda wad ka cabsiisay caruurtii bad ka cabsiinaysaa anigii bay daalac ii raacdeen waxaan ku rabay tiri hortiina ayay igu caynaysaa oo daanyeer leedahay kulligiina waad wada fadhidaan waad ka aaminsantihiin arintaas العراقية وكنا نقعد أنا والعراقية دائما مع بعض وبعد ما شافوا أنا يعني أشم ريحة الإسلام من عندها وبنتي وبنتها متفقين ويلعبون مع بعض دخلوا فينا وقالوا أنتم عنصريين هالمرة يعني نحن ما إيه waxay tiri hooyadii ciraaqiyada ahayd ayaan wada fariisan jirnay oo isweheshan jirnay hooyadaas anagoo iska sheekaysanayna gabadheedii gabadhayda yarna way isla ekaayeen way isla ciyaari jireen anagoo hooyadaa iska wada faraxsan maadaama iyadana carabiga si fiican u taqaano ruwayda gabadha ciraaqiyadana ay carabiyad tahay waxay tiri anagoo iska sheekaysanayna oo iska faraxsan iyo ciyaalkii ciyaaraya naloo soo galay waxaabana lagu yiri idinka cunsuriyiin baa tihiin macnaha dadka ka dhex baxdeen oo cunsur baaba tihiin oo dad xun baa tihiin ayaana lagu yiri bay tiri ما حسينا سلام نحن بدينا دقنان ما ندري من بيتري وبالليل نضحك مع بعض ونقعد مع بعض
بعدين قالوا لا 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 هذا ما بيصير، انتم ضد الانتجرخون، انتم اولاد تعلموهم بين السويديين والاجانب. الام خافت وهربت مني، قامت waxay tiri waxay nagu yiraahdeen ma soconayso, waxay tiri annagoo wada faraxsan bay arkeen ile annaga isfahmayna waxaan ka ursanayay bay tiri islaamnimadan ka ursanayay waan ku soo dhowaanayay gabadha ciraaqiyadda maadaama keligeed ee muslimka ahayd. waxay tiri waan isweheshanaynay, ciyaalkeennii baa isfahmay oo isla ciyaarayay. waxay arkeen annagoo faraxsan annagoo qoslayna, kadibna markay noo yimaadeen waxay yidhahdeen maya maya ma soconayso, carruurtaad waxaad baraysaan ajaanibka iyo iswiidanku inay kala duwan yihiin ayaad baraysaan, macnaa carruurtan waxaan ku beeraysaan, marka ma soconayso. kadib waxay tiri gabadhi ciraaqiyadii maadaama markii horeba ay meesha u joogtay inay isku buuqday oo ay ka soo waaleen nolosheedii ku ciyaareen iyadii ciyaalkeeda, gabadhii bay igu direen ilaa ay inta iga cararto ay kuwii iswiidhanka ahaayee islaamihii daroogada qaadanayay ay la fadhiisato, anigana cidlo lay soo dhigo. اقعد مع السويديين وانا صرت ارجع للطرفهم. أرادوا ولما يفرقوكم ارجع عن بعض للطرفهم لما لقوكم مجتمعين ومتآلفين يعني. ايوه يعني بنتي وبنتها نفس العمر ويلعبون مع بعض ونحن قاعدين مع بعض ونحكي بالعربي وما عندنا اي مشكله. وهيك شافوا انه ما راح تصير غلط كتير، ما في ضغط علينا، لحتى يقضوا علينا فرقونا. وبعد ما فرقونا ايش يصير يا اخي يا مصطفى؟ واحده سويديه عندها دروك بروبلم تجي لعندي وتقول gabadhii waxay tiri wayna kala fogeeyeen, way isku keendireen. waxay tiri qofta keliya iska fahmayna meeshay ahayd, qofta keliya iska weheshanayna ahayd, carruurteeda wada ciyaari jirtay. aniga waxay tiri waa kii markii ciyaalka Sweden-ka markii ciyaalkayga la ciyaarayeen waa kuwa daanyeer ugu yeeray, waa aniga goreyle iigu yeeray, magacaygii ruwayda goreyle u bedeleen. waxay tiri waxa ay igu samaynayeen dhamay arkin. markaan gabadhan ishelnay oo gabadhan aan wada fariisanay way ka xumaadeen, inaan faraxnana ma ay rabin. markaa sidaa la adligeed gabadhii bay igu direen, kadibna meel gooniyaan istaagay. hadda waxaa bilaamaysa in naagihii daroogada qaadanayay Sweden-ka ahaa mid ka mid ah ee u imaan doonto oo iyada toos ula hadli doonto. qisadan taafaraad insha allah part 4 ayaan kasoo dhigi doonaa insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. la socdo qaybta part 4 insha allah. wasalaamu calaykum.